waalidiinta gaar ahaan hooyada ayaa fahmi karta dhibta ay leedahay dhalidda iyo korriimada ilmaha. Marka ay hooyadu dhasho mataano, hawshu sidii hore way ka adkaataa, waxayna hooyadaas u baahataa caawinaad. Bal qiyaas, hooyada dhasha 9 carruur oo caafimaad qaba hal mar. J'ai donné naissance à 9, 5 filles, 4 garçons. Les garçons, il y a Mohamed, Ba, Omar, Al-Haj. Et les filles, il y a Hawa, Adama, Oumou, Khadija, Fatouma. Xaliima Ciise oo iyada isaygeeda Khadiir Arbi ah qoys muslimiin Maaliyaan ah ayaa 9 cunug oo bad qaba ku dhashay isbitaalka Ain Borkha oo ku yaala gobolka Casablanca ee dalka Morocco sanadkii 2021. Xaliima ayaa sidaas ku jibisay rikoor ay hore u dhigtay Nadia Suleymaan sanadkii 2019 taas oo dhashay 8 cunug oo bad qaba hal mar. Xaliima inta ay uurka lahayd waxay dhaqaatiirta u sheegeen inay caloosha ku sido 7 cunug, laakiin awoodda Alle subxaanahu wa tacaala ayay ku suurta gashay inay dhasho 9 cunug oo caafimaad ahaan bad qaba. taasi ayaana ku tusaysa in bini aadamka si kasta oo uu horumar u sheegto ay mar walba ka sarreyso awoodda Rabbi subxaanahu wa tacaala. Nous sommes partis de 7. Allah nous a offert 9. Au début, on n'avait pas cette information jusqu'au Maroc ici. Mais c'est au cours de l'intervention que nous avons su, au lieu de 7, nous avons 9 bébés. Nous remercions d'abord aussi, après le Tout-Puissant, les autorités de mon pays, le Mali, qui ont tout mis en œuvre pour le suivi, les frais, tout ce qui concerne madame et les enfants pour la prise en charge. qoyskan ayaa sanad kadib dib ugu soo laabtay dalkooda Mali iyadoo guud ahaan dawladda Mali gaar ahaan wasaaradda caafimaadka ee dalkaas ay si dhow ula socotay xaaladda qoyskan soo dhaweyn fiicanna u samaysay. C'est pas très bien, alhamdoulilah. Je suis venu au nom du président de la transition, du Premier ministre, de tous les gouvernements. Il a souhaité la bienvenue. markii la ogaaday in Xaliima Ciise ay caloosha ku sido tiro ilmo ka badan sida caadiga ah ayaa dawladda Mali waxay go'aansatay in Xaliima loo qaado dalka Morocco oo ay u arkayeen halka ugu dhow ee hooyadan iyo ilmaheeda lagu kala badbaadin karo waxaan xaaladdeeda caafimaad si dhow ula socday 35 qof oo isugu jira dhakhaatiir iyo kalkaaliyayaal.